waxaan rabaa inaan ka jawaabo 5 kamid ah su'aalaha ugu badnaa ee la isoo weydiiyay TikTok. Tan koowaad ee inta badan dadka isoo weydiiyaan waxa waaye halkee ka bilaabaa editing. Yes, su'aashaas way adag tahay. Yacni markii la bilaabayo aad ay u adag yihiin. Marka ani waanadeedu waxay noqon lahayd inaan ka bilaabid programmada easy-ga ah, free-ga ah, sida CapCut, Filmora iyo kuwa kale. Hadda waa ujeedaa programka waa soo kicisay. marka hadii aad program soo download gareystid oo soo kacisay waxa bilaabay inaad muuqaal soo gelisid marka muuqaal soo gelisid fiiri markuu horeysay programka inta UI-giisa fiirinayso uu egahay markii aad la qabsatid halka program muuqaalka laga soo geliyo marka muuqaalka soo geliyo kadib maxaa la sameeyaa timeline jiro oo wax lagu jarjaro timeline-kii markaa soo dhigtid waxa sameeynaa muuqaalkan kale aad daba dhigeena hadda waa ujeedaa markuu horeysay waxa sameysay editing program soo kicisay laba muuqaalna asdaba dhigtay marka maxaa laga rabaa in step further aqaadid yani abaritid sida music loo saaro iyo waxyaabo badan transition sida loo daro su'aasha labaad la isoo weydiiyay waxa waaye casharo free halkee ka heli karaa runtii meel badan jiro casharo free laga helo YouTube-ka waxa arkay step by step casharo ah arkay hadii aadan fahmin waxaa jiro website la lahayo Coursera hadda ku qortid free editing waa heli kartaa ayana marka su'aashaas zaid uma dheeraanayna waxa waaye casharo badan jiro markii laga soo tago YouTube iskiisaba waxaa jiro muuqaalo saacadooyin soconaay oo English ah hadda aad English ka fahmin just free wax la sameeyo okay su'aashaas ugu gudbay su'aasha kale ee dadka soo weydiiyay waxa waaye programka ugu fudud aan la isticmaali karaa programka ugu fudud waxa waaye CapCut iyo Wondershare Filmora intaas hadii kaliya aasiisid maalintii hal mar ama laba mar isbuuc waxa huwa inay professional ku noqonaysid kaliya raadis sida ku helileed ku download gareysalad ama computerka ama mobilka su'aasha afraad waxa waaye adiga liibaan ahaan see ku baratay editing أنا هرتكو حاسمين جري مقالة موبايل كي قدوي جري برنامج أو حاستعمال جري وندشر فيديو إديتور أنت أنا وندشر في المرة اللي دهين أنت أنا وندشر في المرة اللي دهين وحال ده جري وندشر فيديو إديتور متكاس هكسو برتاي متكلا كورال فيديو ستوديو اللي جري بنيكل ستوديو أنت حاستعمال جري مركب حاسمين جري موبايل كي شورت فيديو قدوي جري كتب نوع إديت جرين جري أنا مركز هكسو برتاي waxaa hadda la isoo weydiiyay software-ka isticmaasha hadda inta badan la isoo weydiiyay software-ka hadda isticmaasha markii aan rabo inaad text qoraal soo qoro animation sameeyo iska cadahay programka ugu wanaagsan ee lagu sameeyo waa After Effects marka After Effects isticmaalaa markay noqoto graphics iyo waxaas inaa soo qoro basic editing kana waxa isticmaalaa Premiere Pro ma ahan choice-kayga ma ahan ma jeceli laakiin waxa uu qasbaa waxa in After Effects ay integrate sameeyaan marka maadaama ay labadooda isku xiran yihiin ay fududeynayaan isku xirnaadaan marka waxa ku qasbanaa in Premiere Pro isticmaalo waxa jira programme kale aad u wanaagsan Final Cut Pro, DaVinci Resolve wax kale kuwa badan oo professional jira laakiin Premiere Pro dadka oo raba in labada program isku isticmaalaan video qurxiyaan kadibna graphics ay saaraan waxay isticmaali karaan Adobe After Effects iyo Premiere Pro. Alright marka muuqaalkeen intaas uu yahay muuqaalka xiga noo balana. Bye.